وأيام بأيام دوني آخر تبان من آن لهان دفتر لوغيزان وأيام إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maanta oo ay taariikhdu tahay 30kii bishii 12aad ee 2014 oo sanadkan dabayaaqasi yahay waxa xabaalaha xeedho ee magaalada Hargeysa lagu aasayaa xogiyihii ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamed Rashiid Maxamed Faarax kadib markii uu ku dhaawacmay isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray shil baabuur oo 26kii bishii 12aad ee sanadkan 2014 ka dhacay duleedka magaalada Berbera shilkaasi ku dhacay kadib waxa ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenkii ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamed Cabdi Curad iyo mid kamid ah wariyaasha ka hawlgala magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Cabdicasiis labadaas waxa soo gaaray dhaawac fudud waxaana maalintii Jimcihii xogayaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soldier Maxamed Rashiid Maxamed Faarax loo qaaday magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halkaas oo hawlo caafimaad loogu geeyay si loogu soo daaweeyo balse tii xaq ahayd ayaa goobtaas ugu timid waxaanu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaaladaasi waxaana maanta la keenay magaalada Hargeysa waxaana sidaasi aad arkaysaan dadweynaha si tirada badan leh ee isugu jira siyaasiyiinta warfidiyeenada iyo guud ahaanba bulshooyinka Soomaaliland ay ka soo qayb galeen aaska loo sameeyay rabbi naxariis jannaha ka waraabiye marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax Maxamed Rashiid Maxamed Faarax wuxuu muddo badan ka soo qayb qaatay sidii uu doodi lahaa uu hanaanka u jeexi lahaa isla markaasina uu xaqooda u siin lahaa guud ahaanba xorriyatul qowlka gaar ahaan saxaafadda ka hawlgasha magaalada Hargeysa ama guud ahaanba Soomaaliland balse taabagelintii taasi iyo dariiqii dheeraayay uu socday waxa ka hor haleeshay geerida xaq ahayd taas oo ah midaan la baajinaynin isla markaasina qof waliba uu ku xukuman yahay barnaamijkan gaarka ah aad daawanaysaan waxaan ugu tala galnay balin lagu eego qof waliba wuxuu ku xasuusto rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye xogiyihii ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax saasi daawateen ama daawan doontaanba waxaan idinku soo gudbin doonaa qaar ka mid dadka ay soo wada shaqeeyeen wixii ay ka yaqaaneen wuxuu ahaa shakhsiyadiisii qofnimadiisii iyo waliba in guud ahaanba halkan looga duceeyo marxuumka oo maanta kaliya u baahan in loo duceeyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنتم حين أسكسي شوقنا مرحوم محمد رشيد محمد فارح وكيه ururka saxaafadda Soomaaliland Soldier ilaahay waxaan ka baryayaa inuu u naxariisto dambigiisana u dhaafo qoyskii ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliland oo ka baxayna simiriye iimaan ka siiyo maxamed rashiid qofku ahaa intii iga horeysay hadashay ayaa ka sheekaysay nin balaaran oo bulshay ah oo saxaafaddu ay ku urursan tahay oo isku wada oo cid walba og ayuu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa mar labaad inuu u naxariisto dambigiisana u dhaafo assalaamu calaykum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxamed rashiid ilaahay naxariisana ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii ka baxayna ilaahay samiriye bana ka siiyay bada saxaafadda iyo asxaabtii faraha badnayd ee uu lahaa inagana cibra inoo tahay oo inteena hadheena ilaahay mataqaanaa haynoogu dambi dhaafay noona daba naxariisto muxuu ahaa samiriye iimaan nin balaaran buu ahaa oo idinka arka halka waxa bulshada isugu timid meel mar la leeyahay khalqiga ilaahay ilaahay naxariisna ka waraabiyo inagana haynooga daba naxariisto bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay maxamed rashiid iyo wixii muslim dhintay baa u naxariisto aasas badan baa jiray iyagana ilaahay ha wada naxariisto maanta xabaalaha kamid ah ilaahay nagana inuu ka daba naxariisto iyo wixii muslimiin oo ilaahay dambigood ha dhaaf ilaahay dambigeena ha dhaaf kii waalidiinteena ha dhaaf isagana qoyskiisii awal khayr qaba ilaahay halkiisa u keeno nin dhalinyaro buu ahaa
oo dhalinyarada imka soo baxaysa iftiimaysa ahaa laakiin dee isagoo dhalinyar baa wadka yimid ilaahay waxba lama laha ilaahay waxaan ku rajaynayaa halkiisa inuu cawil khayr qaba qoyskii iyo ummadda Soomaaliyeed baa u keeno mar labaad ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo isaga iyo wixii muslimiin hore u dhintay inagana aynu daba naxariisto uu ka tegay ummadda Soomaaliland oo dhan iyo qoyskii uu ka dhashay iyo eheliyadiisii oo dhan ilaahay inuu samir iimaan ka siiyo iyada isagana ilaahay jannada ilaahay uu ka waraabiyo ilaahay sidaas aan ugu ergeynina ilaahay inuu jannada ka waraabiyo ilaahay sidaas aan ugu ergeynina waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut anoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan tacsoo dirayaa ehelkii qaraabadii asxaabtii suxufiyiinta reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba iyo ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier waxaan ilaahay uga baryaa Maxamed Rashiid Maxamed Faarax in ilaahay naxariista janno ka waraabiyo eheladiisina uu sabir iimaan ka siiyo sida uu sheegay Maxamed Rashiid waxaa qof runtii dadaal fara badan soo galay saxaafadda Soomaaliland siday kaalin iyo tallaabo hore ugu qaadi lahayd muddo fara badan buu hawshiisa iyo waqtigiisaba u hibeeyay inuu saxaafadda Soomaaliland kor u qaadideeda uu ka shaqeynayay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliland buu ahaa ee Soldier kaasoo ah urur saxaafadda Soomaaliland meel kastaba ay joogtay oo abidaan ay ku soo hirtaan si ururkaasi wax ugu taro saxaafadda aqoontooda iyo garaadkooda dhinaca saxaafadda buu kordhiyo runtii isagoo hawl saxaafadeed ku dhex jira iyo geeridan ku timid Maxamed Rashiid wuxuu qof ku culus saxaafadda Soomaaliland wuxuu qof ku culus intii uu yaqaanay shacabka reer Soomaaliland wuxuu ahaa qof niyad fiican wuxuu ahaa qof qalbi fiican wuxuu ahaa qof maanta kasbaday intaasoo qof inay isku yimaadaan intani Maxamed Rashiid wax laga yaabo qof kastoo halka yimid maanta amba geeridiisa yimid inay Maxamed Rashiid kulmeen qofku hadduu weyn yahay iyo qof dhalinyaro iyo qof odaya intaba Maxamed Rashiid si fiican bay u yaqaaneen si fiican buu yaqaanay waayo isagoo nin dhalinyaro ayuu haddana waayeelaha runtii ilaahay naxariista janno ka waraabiyo inteena hadhayna waxa loo baahan yahay qof walba tala u dambaysa qof walba maalin buu dhiban doonaa qof walba inuu xusuusto waqtiga ka horeeya qof walba inuu dadka saamaxo Maxamed Rashiid waxa uu leeyahay ummaddu cidii wax ka tirsanaysa inay saamaxdo qofku maalinta uu dhinto waa la saamaxaa daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa tacsida ay waliba aqoonta loo lahaa marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax Allah u naxariistay oo shil gaadhi oo ka dhacay duleedka magaalada Barbara ku geeriyooday isla markaana maanta lagu aasayo xabaalaha xeedho ee magaalada Hargeysa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Maxamed Kaahin ayaan bal markan isagana weydiinayaa tacsida uu u diray bal marxuumka eheladiisa qaraabadiisa ay waliba wuxuu ka yaqaanay Maxamed Rashiid Maxamed Faarax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax marka hore ka tacsiyadeynaya guud ahaan qaranka Soomaaliland waxaan kaloo ka tacsiyadeynaya bahda saxaafadda ee uu ka mid ka ahaa waxaan tacsiyadeynaya ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday waxaan leenahay marka ugu horeysa ilaahay dhammaanteen samiri iimaan ha naga siiyo qoyskii uu ka baxmana ilaahay samiri iimaan ha ka siiyo cawil khayr qabana ilaahay ha ugu bedelo Maxamed Rashiid wuxuu ahaa dhalinyaradii sida xaqiiqada ah ku soo barbaartay saxaafadda reer Soomaaliland waxaan oran karayaa wuxuu ahaa dadkii saxaafadda barbaarintoodu aanay ka khasaarin ee mudakarka aad iyo aadka u ahaa oo mihnadii saxaafadda ee uu ka baxayna si fiican looga tabayo saaxiibadii dadka ay isbarteenna uu si fiican u tabayo wadka baynaan inaku xukumin ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq ilaahay baana geerida soo dajiyay qof kastaana uu dhimanaya ilaahayna isaga wax kasta awood u leh ilaahay ayaa wax walba xaqa hore inoogu sheegay quraankuna uu inooga waramay ilaahayna wuxuu yiri innahu huwa adhaka wa abka ana minna ka qosliye minna ka ooya innahu huwa amata wahya aniga noloshana hayana geerida haya innahu huwa khalaqa zawjayn dhakara wal unsa aniga ana haya laba dhabar dhexdoodna ana ilmo ka soo saaray ilaahay yiri ilaahay sida inoo sheegay ayuu walaalkeen xaqii uu kulaha ilaahay ka gutay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo inuu ilaahay qabriga u nuuriyo
inuu ilaahay niyaddii wanaagsaneyd ee saalaxayd uu ummadda la dhex joogay uu ilaahay ku arsaaquu janno ugu bedelo ilaahay dartii waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jannatulfirdowsa ka waraabiyo waxaa qof saalixa oo dad jecel oo xaruuriya oo niyadda wanaagsanna ilaahay bini aadmiga uu ku arsaaqaa oo qalbi fiican oo saamaxaad badan oo xasuusan wax allaala wuxuu sheegaya buu ahaa waxaan xasuustaa dhakhtarkii ugu horreeyey markuu gaadhigu la dhacay gacanta ku qaaday ee markuu gaadhigu saa ula dhacay shilka la kulmay ee ambalaaska saarayay wuxuu yidhi isaamaxa dadkii waxaad ku tiraa buu yidhi isaamaxa niyadda wanaagsan ee uu qofku leeyahay ayaa kuu sheegaysa inuu kelmaddaas saadiqahay ay ka soo baxdo wuu joogaa dhakhtar cabdiraxiin cabdulaahi ducaale markuu saa gacanta ugu dhigay wuxuu yidhi dadkii waxaad ku tiraa isaamaxa waxay taasi kuu caddaynaysaa inuu laabta qofka bini aadmiga waxba ku haysan maxamed rashiid walaalkay buu ahaa ixtiraam badan buu ku lahaa warbaahinta xaq badan buu ku lahaa nin mabdi'iisa iyo fikirkiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa ku adag buu ahaa dadka dooda fiican ee aragtidiisa iyo mabaadidiisa tixgeliya buu ahaa laakiin tii insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannatu firdowso ugu bedelo dadkii iyo walaaladii uu ku xidhnaa oo soomaali oo dhan ahaa maanta maxamed rashiid markaad hargeysa ugu timaado beritoole addis ababaad ku arkaysay saha dambe waxaad ku arkaysay burco maalinta kale waxaad ku arkaysay jabuuti maalinta kale suudaan baad ku arkaysay nin ilaahay ummadda u diray oo diranaa buu ahaa nin ummadda ilaahay oo ilaahay u diray buu ahaa dadkii ku xidhnaa kama murugoonaya geeridu waa xaq laakiin dadkii ku xidhnaa cid walba lahaa ee waxtarayay u caawinayey ean waxba dhiganaynin inuu ilaahay iyaga samir iyo iimaan ka siiyo ayaan ilaahay uga baryayaa maxamed rashiid ilaahay u naxariisto jannatu firdowsa ilaahay ka waraabiyo bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa raajicuun maanta waxaanu joognaa geeri naxdin leh allah u naxariistee maxamed rashiid oo ahaa saaxiib weyn waxaanu isnaqaanay ilaa in gaadhis 20 sannadood oona soo wada shaqaynay meelo badan baan ka soo wada shaqaynay jamhuuriyaan ka wada shaqaynay soolshaan ka shaqaynay ururo badan ka wada shaqaynay wuxuu ahaa nin deeq aan la qiyaasi nin dadku jecel yahay bulshadu jeceshahay wuxuu ahaa nin dul iyo samir u leh wax kastoo qabanaya wuxuu ahaa oo kale waa nin ku caan ahaa nin adkaysi u leh wuxuu aaminsan yahay inuu ka miro dhaliyo oo aanu marna ka daalin wuxuu ahaa nin jecel dhallinyarada in wax u qabto xuquuqda saxaafadda u doodo nin kastoo la xidho gobol aanu tegin ma jiro sool buu tegey sanaag buu tegey selel buu tegey intaa wuxuu tegayey inamada la xidhay ama saxaafadda xorriyaddeeda wuxuu ahaa nin kastoo doonaya in wax loo qabto nin raaca oo dulle wuxuu ahaa nin gacan furan nin deeqsiya codkara waxaan u odhan lahaa waa nin ka baxay maanta waa geesi ka baxay saxaafadda somalilan in badanna ay tabi doonto waxaana ilaahay uga baryayaa inuu jannadii firdowso ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii ka tagayna uu samir iyo iimaan ka siiyo kullu nafsin daa'iqatul mawt qof waliba uu dhimanayaa waa maxamed rashiid allah u naxariisto iyo inta kale lagu aasayo muxuu ahaa xabaalahan waxa weeyaan nin dhallinyaro ahaa firfircoon aad loo qadariyo muxuu da'diisa ka weyn kolka loo eego muxuu howlaha uu qabtay iyo siduu muxuu u shaqeeyo waa geeri fool xun baa maanta muxuu ahaa inagu timid ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay maxsila dhibaataysanna ilaahu sakhiro inta xabaalahan oo dhan allah u naxariisto intaasaan ku soo koobayaa bal qof walba wuxuu ka yaqaanay anoo inta badan weydiinay dadka ay soo wada shaqeeyeen isla markaana aqoonta ay isu lahaayeen markani waxay la jooga gudoomiyaha dalladda ururada aan dawliga ahayn ee Mustafa Saacad Dhimbiil bal markan waxaan weydiinayaa bal kumuu ahaa maxamed rashiid maxamed faarax taariikh noocay ay soo wada qaateen goormay isbarteen balna su'aalaadka kala duwan uu uga jawaab gudoomiyuhu bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt runtii dhammaanteen halkaasun baa ina huran ninna in loo soo jiro runtii garan maayo geeriduna waa xaq maxamed rashiid maxamed faarax ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannadii ha geeyo ilaahay camalkiisii suubanaa ha hor qaado dunuubtiisiina ha dhaafo maxamed rashiid maxamed faarax waxaan ku tilmaami karaa anigu inuu nin walaalkay ahaa waqti dheer baan runtii soo wada qaadanay annagu meel baanu ku soo wada barbaarnay baan odhan karaa 1996kiina shaqada saxaafadda mar baanu wada bilownay
weliba xir baan iga soo horreeyay 96 ilaa imka mihnada saxaafadana ku wada jirnay marna runtii ma aanan kala ag fogeyn maxamed rashiid maxamed faarax nolol walaaltinimo oo family baan soo wada qaadanay marka laga yimaado maxamed rashiid maxamed faarax iyo mustafa saacad dambiil reer saacad dambiil iyo reer maxamed faarax family friends ayay ahaayeen runtii maanta yacni dee nin garabkayga ka baxay baan odhan karaa runtii maxamed rashiid maxamed faarax muddadii aanu saxaafadda ku soo wada jirnay nin mihnada saxaafaddu dhab ay ka tahay buu ahaa nin wuxuu ahaa jecel in xorriyadda hadalku ay meel marto muddooyinkii ugu dambeeyey intii uu hoggaanka u hayay ururkii saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolchana waxqabadkiisa in badan bad runtii ka wada dharagsantii annagu mihnada saxaafadda shaqooyin private oo labadeeda khaas nooga dhaxeeyay yacni kambaniya annagu aanu lahayn baanu soo wada abuurnay waan inaan shakhsiyadiisa iyo shaqadiisaba runtii aan garanaya buu ahaa wuxuu ahaa runtii nin qowl leh nin aragti fog leh nin wuxuu uu doonayo iyo waxa uu diidan yahay midna aan qarsan buu ahaa runtii alxamdulillahi rabbil caalamiin sallallahu wa sallama ala sayyidina maxamed kullu nafsin daa'iqatul mawt waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland geeridii ku timid saxafiga maxamed rashiid maxamed faarax waxaan leeyahay dhammaantiin ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay oon leeyahay aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran wa jazaa bismillahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun orda waa geerin naxdin leh geeridan nagu dhacday ee ku timid walaalkeen maxamed rashiid maxamed faarax oo imika ahaa xogayihii guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolcha maxamed rashiid maxamed faarax wuxuu ahaa nin taariikh badan ku leh saxaafadda Soomaaliland wuxuu saxaafadda Soomaaliland maxamed rashiid bilaabay 1995 markii la keenay madbacadii MBB National Britain and Population oo ay la mataan ahayd wargeyska jamhuuriyadda ee ugu da'da weyn wargeysyada Soomaaliland maxamed rashiid wuxuu ka shaqo galay jamhuuriyadda 1995 isagoo ah sales and marketing loo qaatay markaa muddada 95kii ilaa imika oo uu ku godgalay maxamed rashiid wuxuu ahaa dadka ugu firfircoon saxaafadda Soomaaliland ee meel kasta oo uu joogo hadduu xil markaa u hayo saxaafadda iyo haddii aanu u haynba ugu dadaalka badan ee ku dadaali jiray madax bannaanida iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxaafadda anigu haddaan shakhsiyan backgroundkiisa caadiga iyo kayga ka hadlo anigu waxaan ahay maxamed axmed jaamac caloole ninka la yidhaah maxamed rashiid maxamed faarax 1997 dabeeqadiisii wuxuu ahaa ninkii aniga saxaafadda igu soo diray ee qalinkaga qabtay aniga macallinkayga gaarkaa buu ahaa maalintii uu igu soo diray saxaafadda 1997 dabeeqadeedii ilaa maalintii uu geeriyooday laba nin oo walaalaa oo iskarab jooga ayaanu ahayn sida kalena u hela maxamed rashiid wuxuu baneeyay boos weyn oo ku bannaan saxaafadda Soomaaliland taasoo 3 sano ugu dambeeyay ugu dooranaa difaacidda xuquuqda saxafiga iyo saxaafadda taasina ay keentay in issue kasta oo saxaafadeed hadday institution tay iyo hadday individual saxafiya tahay oo la xidho uu difaacayay qofka bani'aadamkii dil buu ku xukumay uu dhimanaya laakiin waxaan oo kale malaatani geerimaha waa geeriyooyin waayo dad baa qulubtooda dhimanaysa oo dareen ahaan dareemaya anigu waxaan ka mid ah dadka victimska ah ee maxamed dee ku xasuusanaya abaalka iyo waxqabadka ay saxaafadda gashadaan waa halmuceed ama waa haldoor ama waa u dhaqdhaqaaqay xorriyatul qowlka Soomaaliland oo aynu maanta aasino ilaahay waxaan ku rajaynayaa qaar badan bedeli doonaan qofba waxa uu kaga dayanaya anaga wuxuu hormuud igu yahay inaan isku dayi doono inaan balbooskiisa dadka yar isku dayay inay wax ka qabtaan inaan ka mid noqdo saxaafadduna way iska dayac badan tahay qof bini'aadam oo aan nuuxsanayno oo kii meel lagu dhibaba u hadlaya runtii anu dee isagaaba institution guuraya ahaabaan ku tilmaami karaya marka wuxuu inaga mudan yahay maanta uu dhintay inaynu u ducayno ilaahay jannada firdaws uu ka waraabiyo inta kale ee akhyaartiisa wada shaqeeyeen cafis iyo saamax in la yiraahdo ehelkii uu ka tagay saxaafaduna samri iimaan ka siiyo inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'da wa kulli shay 'indahu ajal musama maxamed rashiid walaalkeen ilaahay uu naxariisto maanta wuxuu u baahan yahay duco inaan u ducayno in ilaahay su'aasha u fududeeyo waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan qoyska reer maxamed faarax inamada oo Faadumo iyo xaaskuu ka geeriyoodayba iyo bahda saxaafadda guud ahaanba waxaan leeyahay samiriye iimaan wadadaas la hayaa
qof walbana waxaa loo baahan yahay inuu usii shaqaysto dee qabrigaasaa sugaya adduunyadu waa waxaynu ku maraynaa markaas dee safar kooban baynu ku maraynaa in la laasimo diinta oo markaas cibaadada dee lagu toosnaado. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. xaggan waxaan tacsi uga dhalayaa dhammaan bulshooyinka Somaliland gaar ahaan reerkii qoyskii uu ka baxay Maxamed Rashiid Maxamed Faarax. dhammaan ilmo Maxamed Faarax waxaan leeyahay ilaahay samri iimaan idiga siiyo iyo dhammaan bahda saxaafadda uu ka tagay ilaahay samri iimaan dhammaanteen naga siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. kullu nafsun daa'iqatul mawt. maanta waxaan aasaynaa Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo ahaa haldoorka u dooda dhaqdhaqaaqa xorriyatul qowlka saxaafadda Somaliland. runtii waxaan leeyahay taariikhdu ilaawi mayso kaalintii uu Maxamed Rashiid ugu jiray warbaahinta Somaliland. waxaan ka tacsiyadayaa qoyskii iyo qaraabadiisa iyo dhammaan bahda warbaahinta Somaliland. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. geeridu waa xaq kullu nafsi daa'iqatul mawt. ilaahay baa baaqiya aadam oo dhan u kole waa dhinte geeriyuhuna waa kala culus yihiin. maanta geeridan aynu halkan nimid waxa maanta inaga baxay oo qaranka guud ahaan Somaliland ka baxay oo gaar ahaan inaga baxay Allah u naxariistay Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo aynu ognahay taariikhdiisa. wuxuu ahaa haliyey buu ahaa Maxamed Rashiid haldoorka ummaddan ka mid ah isla mar ahaantaana raggii dhidibada u soo taagay ee geedi socodka hannaanka saxaafadda ay soo martay. nin wuxuu ahaa aasaasayaashii aynu odhan karina raggii maraaxilkii ugu hooseeyey ka soo bilaabay. taariikh mugla buu ku ahaa xogayaha Solja Maxamed Rashiid Maxamed Faarax. taariikhdiisi kolle waa laga sheekeeyey. nin gobonnimo badan buu ahaa Allah u naxariistay. nin deeq badan buu ahaa. nin aad iyo aad u farxaansan oo ummadoo dhan jecel buu ahaa. dad jacayl fara badan leh. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. geeridiisu kadis bay nagu ahayd. kadis bay nagu ahayd. iska mawtul qaflay nagu ahayd. ilaahay waxaan uga baryayaa oo hadalka nuxurkiisu yahay ergaynu nahay inuu ilaahay ergadaynaga aqbalo. ilaahay baynu ka baryaynaa si naxariis leh inuu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay ergadaasi naga aqbalo. qabriga waasac inuu ilaahay uga dhigo. inuu Nabi Maxamed ilaahay ku xiriiriyo. ergada intaa leega maanta qarankii looma kala hadhin. ummadda afka Soomaaliya ku hadasho dhan buu ninkani ka dhaxeeyey marxuumka ahi. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye oo nin ay aad ummadda oo dhan u jeceshahay buu ahaa. geeridiisaasi geeriyaha inoogu naxdinta badnaa buu marka Somaliland la qiimeeyo bay ka mid noqonaysaa sida kadisaha ah. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu qabriga waasac uga dhigo naxariistii jannatul firdaws ugu deeqo. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. maanta halkan waxaan u taagnay geeridii Maxamed Rashiid Maxamed Faarax. nafsu daaqatul mawt naf walbana waxa sugaysa inta Maxamed Rashiid waxaan soo wada shaqayn jirnay ilaa 2007 9 sano meelaha Maxamed Rashiid wuxuu ahaa nin qaali ah. hore waa looga soo warramay. marka maanta waxa halka aynu isku wada nimid waxa weeyaan nin hal adayg oo ka baxay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland saxaafadda ka baxay. maanta aad ayay aniga murugo iigu tahay Maxamed Rashiid markii aan la shaqayn jiray ilaa xalay maan gam'in. marka inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun baan leeyahay. qoyskii reer Maxamed Faaraxna waan ka tacsiyadaynayaa. wuxuu ahaa nin hal adayga oo saxaafadda tiirka u soo taagay. wanaagiisana waa laga warramay. faataxada baa maanta inoo haboon inaynu u marno. ilaahay qabriga ha u nuuro. ilaahay ehelkiisii samriye iimaan ha naga siiyo. ehelkiisii baanu ne ilaahay rabbigu ha ka siiyo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan. waxaan guud ahaanba tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii ka baxay xogayihii guud ee Solja Maxamed Rashiid. waxaan kaloo guud ahaanba tacsida u dirayaa bahda saxaafadda oo runtii uu wax qaban u soo qabtay. waxaan leeyahay naxariista jannaha ka waraabiyo. ilaahay bedelkiisa khayr qabahayna siiyo. intii timid ilaahay u ducaysana ilaahay ducada ha aqbalo. janna firdaws ayaan ugu ducaynanaa. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyaamah faman suhsiha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur. geeridu waa xaq qof walba u dhimanaya. waanu ku wada xukumanahay. maanta waxaynu joognaa geerida walaalkeen Maxamed Rashiid Maxamed Faarax. runtii anagu muddo 5 sanadood aan ka soo wada shaqaynay wargeyska Haatuf. wuxuu ahaa nin wanaagsan oo dadka yar iyo weynba wanaagsan. wuxuu ahaa suxufi karaamo ku dhexleh bulshadiisa. wuxuu ahaa runtii nin aan oran karo way yar tahay inuu dib u soo maro saxaafadda. nin sikhiya buu ahaa oo dadka oo dhan waxa uu haysta jacayl inuu siiyo. nin aan carabkiisa iyo adinkiisaba laga nabad galay buu ahaa. runtii waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu jannadii firdawsa
uu geeyo innagana samiriya iimaan inaga wada siiyo bahda saxaafaddana si gaar ah baan uga tacsiidaynayaa ilmo maxamed faarax dhammaantood waan tacsiidaynayaa ilaahay jannadii firdowsaa ka waraabiyo ilaahay waxaan ka baryayaa jannadii firdowsaa ilaahay ka waraabiyo marxuumka cabdirashiid aabbihiina saaxiib baanu hayn isagana aqoon badan baan u leeyahay inay yaroo gob ahaa aakharana ilaahay gobonnimu ku siin doonaa iyo meel naxariis leh ilaahay gelin doonaa dadkuna geeri buu wada sugayaa wixii ay wax isku khilaafeenna ha saamaxo dadka wax khayroo ninka waxa ka gala iska saamaxa ninka hala iska saamaxo wixii ay aad kala galeenna ilaahay jannadii firdowsna ha ka waraabiyo wax kaloo nala garanmayna ducu baa nala gudboon inuu wanaagsan buu ahaa aakharana ilaahay wanaagga ha ugu daro lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan maanta joognaa janaasadii maxamed rashiid maxamed faarax oo ahaa xogayihii guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Solja maxamed rashiid waxaan u aqaanay anu waxa ay maanta caalamku yiraahdaan samafale nin samafala abuha 80 jir buha haddana 30 jir buha siyaasi buha haddana saxafi buha sakhibuha aan cid ku agaajon dib kastana ka qayb gala ninka saylac jooga iyo ninka boorama jooga ninka gabile jooga isugu mid buha waxaan ballan qaadanaa in halkiisii dabkii u shida aan ka sii wadno ilaahay maanta samiriye iimaan haynaga siiyo isagana allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsi daaqiyatul mawt maxamed rashiid maxamed faarax wuxuu ahaa suxuf weyn buu ahaa suxuf hal adag buu ahaa xoogayihii ururka Solja ahaa oo anu aqaanay ilaahay samiriye iimaan haynaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rabbi naxariista jannaha ka waraabiye maxamed rashiid maxamed faarax waxa uu haliyay ka baxay bahda saxaafadda Soomaaliland suxufiyiin kala duwan oo ay muddo soo wada shaqeeyeen oo aqoontiisii shakhsiyadiisii iyo qofnimadiisiiba garanaya ayaan bal marba marka dambaysa aan weydiinayaa qof waliba wuxuu ka yaqaanay rabbi naxariista jannaha ka waraabiye maxamed rashiid maxamed faarax mar kalena caraale oo kamid ah bahda saxaafadda Soomaaliland waliba ruucdaayada ah iyo waliba cali oo isaguna barbar taaganaya bal markan igana aan weydiinaya bal dareenkooda والله هرت سمري إيمان دمانتين بإلهي نجسيو محمد رشيد محمد فارح إلهي نحرست جناه كورابيو تضبيط توصل النضات أيام أنا ويسن قانون ودشقيني أو أنا أنت بدن وليبة إسكو عيدا نحين أما ملك سود تشيدنا وحها نين إلهي ونحرست سقيا أو حرية الصحافة ده أي كجو أنت هاي إنه هيرجشوا وحكلو وديرا ضدك كله taakulaynta iyo tabantaabada marka ilaahay u naxariistay wuxuu ahaa aabe saxaafadda Soomaaliland ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan bahda saxaafadda Soomaaliland iyo qoyska iyo ehelkii uu ka baxay marxuum maxamed rashiid maxamed faarax ilaahay samriye mana ka siiyo maxamed rashiid maxamed faarax waxa uu ahaa haliyay ku suntan madax banaanida xorriyadda saxaafadda Soomaaliland waxa uu geed dheer iyo geed gaaban buu fuuli jiray sidii saxaafadda Soomaaliland iyo xorriyatul qowlkuba uu noqon lahaayeen kuwa madax banaan oo ka madax banaan tacaddi kasta ka madax banaan in la caburiyo ka madax banaan in dib ay soo gaadho suxufiga iyo qoraaga iyo cid kasta oo xorriyatul qowlka Soomaaliland ka hadasha waxa uu lahaa nin principle-ka iyo go'aanka uu leeyahay uu cad yahay oo aanu isbedelin nin aan isku bedelin go'aankiisu isku bedelin hanti oo aan isku bedelin qof jacaysi oo aan isku bedelin habrasho cid kale saddexdii sanadood ugu dambeeyay waxaan ka wada mid ahayn oo ku jirnay labadoodba gudida fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja bismillaahir rahmaanir rahiim kullu nafsin daa'iqatul maut inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu taaganahay aaska xogayihii guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland Solja maxamed rashiid sheekh maxamed rashiid intaan ka aqaan anigu 1995 dhalinyaradii markii madbacadaha la keenay lagu bilaabay wargeysyada madbacadaha wargeyskii ugu horeeyay jamhuuriyadda oo ahaa ayaan halka markaa ayaan ku baranay anigu inamadii markaa naga hoos shaqeyn jiray buu ahaa gaar ahaan xagga suuqeynta iyo farsamada dadaalka dadaal buu ka muujiyay 20 sanadood ugu dambeeyay uu ku soo dhex jiray saxaafadda markii dambena haatfay wada asaasay Yuusuf Cabdi Gaboobe iyo rag kale imakana waa kan wargeyska saxafiga weyn gudoomiyaha ka ah markaa nin saxaafadda ku soo dhex jiray laakiin inta lagu xusan karaa waxa weeyaan inuu mar walba u doodi jiray saxaafadda markan had iyo jeer ama ay dawladda isku dhacaan ama base cid kale nin aad iyo aad u gaban buu ahaan jiray oo garanaya oo hadii jeel lagu xidho ugu taga oo u dooda
midda kale mar walba inuu aqoonta kororsado isku day jiray waxaan xustaa mar igala soo hadlay dhowr sano ka hor Tanzania ugu seminar anigu aan isu diray baan u tagay meeshana waan ku banjaray dabadna Jamaal Ali Xuseen markaa City Bank oo Tanzania joogay yaan kala hadlay dabeetana uu ka soo dabaashay marka nin meel walba u marayay buu inuu kororsado aqoon inuu u doodo hal adag ay saxaafigana looga baahiyay isagoo de balance iyo dhinac walba ilaalinaya haddana qofku inuu hal adkaado aanu habran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay markaasi in haw naxariisto qoyskiisii iyo saxaafadda iyo guud ahaan shacbigana tacsiimaan u diraya anigoo Axmed Saciidige inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaanu joognaa runtii aaska marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo ka mid ahaa suxufiyiinta waaweyn ee reer Somaliland oo ku geeriyooday magaalada Nairobi marka hore waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan shacbiga reer Somaliland suxufiyiinta eheladii qaraabadii iyo dhammaan asxaabtii oo dhan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay jannadii ha ka waraabiyo runtii annagu in badan baanu soo wada shaqaynay Maxamed Rashiid waxaanu shaqada uu nala bilaabay 1995 oo Jamhuuriyadda ku soo biiray ilaa iyo oo muddo fara badan runtii uu nala soo shaqaynayay runtii qof aad u karti badan oo dadaal badan oo qiimo leh oo run sheega buu runtii ahaa ilaahay ha u naxariisto taariikh badan buu runtii saxaafadda ku lahaa markii dambena wuxuu aasaasay wargeyska la yidhaahdo saxafi aad iyo aad baan runtii geeridaas shilkaa uga xunnahay waxaananu ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno uu ilaahay ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun makhluuqa maanta isugu yimid intay daawanaysa iyo intay dhegaysanaysaba codsigaygu wuxuu yahay in faataxadii loo maro runtii intii aan wada shaqaynayna ka xusuustaa aanu magac baan u bixiyey naanaysa isna magac buu bixiyey marxuumka Maxamed Rashiid waa intii aanu shaqada ku wada jirnay wargeyska Haatuf wuxuu yidhi war sagaxow adu xildhibaan kasta ciisteetanaad baa tay baarlamaanka anna waxaan ku yidhi Maxamed Rashiid Maxamed Faaraxow maanta uu naga hooseeyahay madaarihii saxaafadda tahay wuxuu ahaa runtii nin aan saxafinimadiisa aan damiirkiisa iyo mabdi'iisa aan la iibsan jirin la iibsan karin maanta waa kaa ku geeriyooday isagoo saxaafadda iyo mihnadiisii saxaafadda iyo mabaadidiisii xaqa ahayd isagoo ku adimaya waa kaa la godgalay maanta marxuum Maxamed Rashiid Maxamed Faarax anigu saaxiib khaasaanu ahayn tu qofeed baanu ahayn tu mihnadeed maanu ahayn laakiin tiisa saaxiib isku dhow oo mid qoyseed iyo mid qofeed baanu ahayn muddo dheerna saaxiib baanu ahayn inna lillahi wa inna raaji'uun waxaan ka taxsiidaynayaa dhammaan eheliyadii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisii inta qurba joogtay inta dibad joogtaba waxaan leeyahay ilaahay samir yeeman ilaahay naga siiyo daawadayaal daqiiqado yaroo kooban ka hor waxaan idiin sheegay in isagii marxuumka shilkaasi ay ku galeen magaalada Berbera duleedkeeda uu la socday wariye ka tirsan warbaahinta Soomaaliya Cabdicasiis lagu magacaabo waa ninkani barbarkayga taagan bal waxaan weydiinayaa markan si shilkaasi u dhacay iyo dareenkiisa maanta ku aadan bal geerida marxuumka Rabbi naxariis jannaha ka waraabiye kulli nafsi daa'iqatul mawt naf waliba maalin bay dhimanaysaa waxaan wada soconay Maxamed Rashiid xagga hore u saarnaa kursiga gaariga markaan Berbera 1 kiiloomitir u jirnay ayaa umba gaariga hog nugula dhacay kadib waxa uu noqday gaariga wiis laba rogay 3 jeer buu dhulka isku kaay rogay markii dambe kursi baa halka ka qabtay qoorta kursigii baan ka soo saarnay annaga iyo ninkii kalena dhaawacaygu aad u fududaa maanta waxaan ummadda reer Soomaaliland iyo inta Soomaaliya inta Islaamka ee dunida ku noolba waxaan ka codsanayaa in faataxada loo maro marxuumka ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo guud ahaan dawlintaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkaasi gaarka ah ee aan ugu talagalnay balin qof waliba uu ka sheekay wixii ku xasuusto Rabbi naxariis jannaha ka waraabiye qabrigana ha u nuure xogihii urka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamed Rashiid Maxamed Faarax oo maanta lagu aasay xabaalaha xeero ee magaalada Hargeysa kadib markii uu shil gaari oo ka soo gaaray ama mase uu ku waxyeelay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Berbera isla markaasina hawlo caafimaad loogu qaaday magaalada Nairobi halkaasina uu moodku ku haleelay waxaana maanta anoo ku hadlay afka Home Cable TV taasi halkan uga direynaa eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba bulshaweynta Soomaaliland gaar ahaan bahda saxaafadda dhahday ee uu ka baxay Rabbi naxariis jannaha ka waraabiye Maxamed Rashiid Maxamed Faarax waxa barnaamijkan igala qayb qaadanayay labada sawir qaaday Maxamed Gaabane iyo Mukhtaar Mursal Maxamed Xiino isagu inta badan muuqaaladaasi kala duwan ee duubay
ويدتكي هبنتي اسكو دبرتكي حسن سياد iyo anigoo kuraasaa iyo waliba guud ahaan baada Home Cable TV oo aniguna aan ka maqnayn goobtani oo irshad ugu horeeyo Cabdirashiid Maxamed Boosh ولد عبد الرحمن يلو بقسمه يسوقنا الضاوتين يلو بين كلام بدنا وجوبته كسوقني وحن تجيتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إينا نقول هانتين با إنه فاتح هذا مرنو ربنا حريص شناك ورابيه محمد رشيد محمد فارح